Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha meel walba aad joogtiin soo dhowaada. Waa walaalkiin Shakuur iyo video cusub. Videogan waxaan rabaa inaan isla eegno sababta maanta ay maxaa la dhahaa BTC cryptocurrency dhammaantooda ay usoo daateen. Videoga intaan aan gudaha u gelin waxaan rabaa inaan u sheego dadka asxaabta videoga ku cusub su'aalo badan ay igu soo noqnoqoto oo maxaa la dhahaa ku saabsan walletka exchange Binance iyo waxaas. Channelka maxaa la dhahaa haddii aad geshid videoga aan kugu tusayaa haddaa geshid playlistiga waxaa ku jiro information aad u badan oo aad ka dhargeysid haddii waqti yar aad siisid oo aad fiirsatid waa ka boganaysaa insha allah. Walletka sida loo furto, Binance sida loo isticmaalo, lacag Binance to maxaa la dhahaa ii sheeg wallet sida la iskugu diro. Take your time, waqti qaado, ma fahamtay? Halkaa si tartiib aad ka fahmaysa because su'aashan way igu soo noqnoqotay. Su'aalaha way igu soo noqnoqdaan anina waxa waye qof walbo waxaa 200 qof aad videoga fiirsato dhammaantooda uma jawaabi kari. Marka maxaa sababay maantay maxaa la dhahaa crashkan dhacay? Waxaa sababay maantay waa bangigan la yiraahdo Silvergate. Silvergate haddii aan isla fiirino Silvergate waa bangi xaruntiisa ay tahay Mareykanka, California, waxaana fikradda iyo aasaaska la bilaabay 1988. Laakiin markii dambe waxaa loo aqoonsaday inuu bangi yahay 1996. Asadkiisu market capkiisu wuxuu ahaa inta crashkan hadda uu dhicin 11 bilyan. Dhibaatada maxaa la dhahaa ii sheeg dhibaatada intaan ka hadlin Silvergate waxaa lagu bartay sanadihii hadda lasoo dhaafay waxaa lagu bartay in uu cryptocurrency aad faraha ugala jiro. Wuxuu ka caawiyaa maxaa la dhahaa exchange-yada oo wuxuu leeyahay partner oo wuxuu ka caawiyaa dhanka iyo lacagaha fiatka. Marka wuxuu ahaa middleman uu ahaa oo exchange-yada badan sida Coinbase maxaa la waxaasoo dhan uu partner la ahaa. Waxaana laga yaabaa asadkiisana inay ka mid ahaayeen BTC because of cryptocurrency ku jiro oona ka shaqaysto waxa waaye waa fahmi kartaa waa logis in oo asagana uu haysto uu investment ku sameeya cryptocurrency. Marka cryptocurrency markii hadday daadato asadkiisana waxa waaye maanis bay gelayaanoo waxa waaye xaaladdu jiq bay ku noqonaysaa. Marka xalay waxaa laga sugayay Silvergate waxaa laga sugayay inuu report 10K la dhaho oo Mareykan laga yaqaano maxaa la dhahaa ii sheeg information xog xog oo tafsiil ah mise maxay ahayd taftiran baa waxaa laga rabay in ay u gudbiyaan SSC-da xaaladooda caafimaad ee dhanka kambaniga iyo maxaa la dhahaa ii sheeg dhaqaalihiisa wuxuu hadda gacanta ku hayo wuxuu iska iibiyey waxaasoo dhan waxaa laga sugayay reportkaas xalay laga sugayay kabacdi waxay sameeyeen delayed bay sameeyeen shaki baa imaaday delayedkaas ay sameeyeen shakiyaa imaaday shakigaas dartiisa inkastoo shakiga xataa haddaan ka baxno haddii aan fiirino chartiga bangigan laga soo bilaabo 2021kii ilaa haddeertan waxaa u malaysaaba inuu la socday BTC inuu la socday almost 100 minus uu ku jira almost 100 minus baab aan caadi ahayn waay from where from 232 all time highgiisa haya 232 oo all time highgiisa ahaa
waxaad u malaysaa in uu BTC la dhaqaaqay alaabtan dhaqaaqan sugi ah dhaqaaqan quruxda badan oo BTC sameeyey aad u malaysaa inuu uu sameeyey wow wow wuxuu sameeyey more than 1544 uu sameeyey wuxuu ka imaaday 2020gii seerkiisu wuxuu ahaa how much was waxa iga qarinaya sheerkiisu wuxuu ahaa adi 13 14 oo wuxuu aaday 230 ilaa 240 meelahaas marka by the way crashkii dhacay sanadkii hore ku dhacay FTX xataa dhaawac weyn uu gaarsiiyey bangigan marka waxyaalahaas oo la isku dardarsaday bangiga xaaladiisa aan fiicnayn iyo reportikii laga rabay xalay inuu diro reportigaasna igu qoran tahay xaaladooda caafimaad ee dhanka dhaqaalaha uu dileedgareeyey taase waxay keentay maanta in suuqii maxaa la dhahaa asxaabtii waa dad waxaa jiro niyuusyadan ka faa'iideysto suuqan laba meel buu loo galaa waa sell iyo buy marka waxayna ku xiran tahay sentimentka xaaladda suuqa ka jirto maanta marka aad bam sentimentkii wuu isbedelay wuxuu isku bedelay shorting in la sameeyo marka waa isla arkaynaa laakiin muhiimaddeena taas maaha muhiimaddeena waa suuqan BTC oo maad dirtan aa u malaysid wax yar inuu soo noqonayo hadday wuxuu ahaa 1.50% down uu ahaa BTC hadda waa 1.16 waxaa u malaysaa inuu kasoo kabsanayo xantii suuqa ku jirtay kolley ma aqaano laakiin altcoinyada dhan waxa waaye si fiican ay u daateen because of that bankigaas xaaladiisana lama hubo kolley waxaa la ogaan doonaa maalmaha soo socdo xaaladda bankigani sida ay tahay coinbase ba shalay waxay soo saartay twitter iyo maanta ma aqaane dhehayso xiriirkii waa u jirnay wada shaqayntii bankigani silvergate marka haddaa isweydiinaysa maanta suuqa muxuu u daatay suuqa wuxuu u daatay arrintaasay ahayd marka waxaan rajaynayaa inaad maxaa la dhaha videogan wax yar aan ka fahamteen oo ka faa'iideen waxaan ka sugayaa keliya waa qoraaladiina commentiga su-aalihiina dhiirigelintiina sheerkiina iyo subscribekiina insha allah dhalinyarada ku cusub oo doonayso maxaa la dhaha xogta ku saabsan cryptocurrency xog badan baa ku jira channelkan ka faa'iideyso insha allah playlistiga tag wuxuu ku saabsan walletka gooni waaye exchangeyada gooni waaye taa waxaa ku jiro basic trade basic ah ku jiro marka waa ka faa'iideysaa insha allah waana salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu